السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشر كلابات برشادة لغة سواحيلية عشر كي كوات وحان كسو براني الفابيتي زكي سواحيلي ألف بيتها لغة سواحيلية وحان الصو براني إلا إيو صدن حروف أو كميدة ألف بيتها لغة سواحيلية وحان الشيغني إن حروفهان أيسن كجرين لغة سواحيلية سدا ع ق إيو ح marka saddexdan kuma jiraan luqada Sawaaxiliga casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa silaabi aan isweydiino waa maxay silaabi waa inaan soo qaadano konsonanti oo ah shibane kadibna aan raacino vokaali oo ah shaqal yani luqada Soomaaliga markaan baranayno waxaan baranaa bataja ilaa iyo ya kadibna waxaan raacinaa ba ayaan raacinaa a b ayaan raacinaa e b ayaan raacinaa e bo marka waa isku mid sidaas ayaan sameyn doonaa insha Allah ba b b bo cha che chi cho chu da de di do du the the tho fa fe fi fo fu ga ge gi go gu ga ge gi go gu tan waa ga tan waa ga tan waa ga ha he hi ho ho ja je ji jo jo ka ke ki ko ku la le li lo lu ma me mi mo mo nga nge ngi ngo ngu marka tan waa nga nge ngi ngo ngu nya nye nyi nyo nyo pa pe pi po po ra re ri ro ro sha she shi sho shu ta te ti to tu fa the fi tho thu va ve vi vo vu ya ye yi yo yu za ze zi zo zo waxaan rajaynayaa inaan fahanay alifbeetaha luqada Sawaaxiliga oo aan akhri karno oo aan qori karno marka haddii aadan weli fahmin waxaan kaa codsanayaa inaad dib ugu laabatid casharkii hore iyo casharkan dabcan waqti badan kaama qaadan doono
casharkii hore ayaa ugu dheeraa wuxuu soconayay 10 daqiiqo mise 9 daqiiqo kan waa 6 daqiiqo wax ku dhow marka insha Allah dib ugu laabo labadan cashar ku celceli kadibna markaad fahantid kasii soo insha Allah casharkeena alif beetaha halkan ayuu inooga dhamaaday wixii hadda ka dambeeyo gudaha ayaan u sii gali doonaa koorsigeena insha Allah casharkeena maanta halkan ayuu inooga dhan yahay casharka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Abdikariim Xasan waxaan ku kulmi doonaa casharka xiga waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh